سأنادي ما بين الناس. dhaqanka sahyuuniyadda ee wax burburisa ma garanayso soohdin kasta oo shuruuc qaran iyo mid caalami ah ma ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo ixtiraamka diimaha quduuska ah. dabeecadeeda qalafsan waxa ay soo shacbaxday tan iyo bilowgii aasaaska sharci darada ahaa iyo galitaankeeda sharci darada ahaa ee dhulka barakaysan ee Falastiin. boqolaal xasuuq, raritaan qasab ah iyo guuritaan iyo dhul qabsi lagu hayay shacabka reer Falastiin ee u horseeday xukun, cabsi iyo argagax. argagixisada sahyuuniyadda si hubaysan oo qorshaysan oo daandaansi leh waxa ay u fuliyeen burburin iyo sharaf dhac ay ku hayaan meelaha barakaysan ee muslimiinta iyo masiixiyiinta. boqolaal masaajido ayaa la burburiyay oo loo bedelay macbadyada Yahuudda ama meelaha hawlaha caalamiga ah. masaajidada Al-Aqsa iyo Ibraahimi ayaa dhowr jeer waxaa soo gaaray burbur xoogan, waxaana hadda qaybo ka mid ah ku cibaadeysta Yahuudda. sidoo kale meelaha ugu barakaysan ee masiixiyadda ee Falastiin, kaniisadaha, macbadyada iyo meelaha lagu tiriyo Ciise Masiixi ayaa si habaysan loo waxyeeleeyay oo la wasaqeeyay. intaa waxaa dheer dagaal nafsi ah oo la sii qorsheeyay oo la soo agaasimaya ayaa siyaabo kala duwan loo adeegsaday, kuwaas oo ka dhan ah muslimiinta Falastiiniyiinta iyo masiixiyiinta degan ee u dhashay Falastiin si looga ilaaliyo inay tukadaan oo ay ka qayb galaan xafladaha diimeed, masaajidada iyo kaniisadaha. waa la dhibay oo waa la weeraray, lagana fogeeyay bulshadii oo ay ka soo jeedeen, waxaana lagu argagixiyay siyaabo kala duwan si ay u tahriibaan ama ay ku noolaadaan go'doon iyaga oo aan si fagaar ah uga qayb gali karin xafladaha diiniga ah ee ay ku cibaadaystaan. isla mar ahaantaana ururada caalamiga ah ee sahyuuniyadda waxa ay qaadeen olole ballaaran oo dacayad ah si loo qariyo dambiyadaasi oo dadka maskaxda looga dhaqo, gaar ahaan Mareykanka iyo reer galbeedka. encyclopedia wax ka qortay dhibaatada Falastiin waxa uu bixinayaa diiwaan dhab ah oo qiimo leh oo quseeya dambiyada argagixisada sahyuuniyadda laga soo bilaabo dhalashada hay'ad sharci darro ah oo sahyuuniyad ah ilaa 1991. faahfaahinta dambiyada iyo gabadfalada kala duwan ee ay geysteen argagixisada sahyuuniyadda ayaa si taxadir leh loo diiwaan geliyay si taariikh leh. cutubiyada 13 iyo 14 ee muga koowaad encyclopedia dhibaatooyinka Falastiin laga qoray sida ay u kala horeeyaan waxa ay bixinayaan faahfaahinta burburinta iyo wasaqeynta meelaha quduuska ah ee muslimiinta iyo masiixiyiinta ee ay u geysteen argagixisada sahyuuniyadda. ururka caalamiga ah ee macallimiinta jaamacadeed ee muslimiinta ayaa ku faanaya inay dib u daabacaan labadan cutub, gaar ahaan dhalinyarada oo laga yaabo in ay aad uga warqabaan taariikhda dheer dambiyada foosha xun ee sahyuuniyadda, taas oo ka dhanka muslimiinta iyo masiixiyiinta Falastiiniyiinta ah. diiwaanka dambiyadooda ayaa si cad u muujinaya in marka laga reebo xusuuqa iyo jirdilka Falastiiniyiinta maalin kasta aysan wax ixtiraam ah u haynin diintooda iyo meelaha quduuska ah, labadaba Islaamka iyo Masiixiyadda. sida ay qormadu tibaaxayso, waxa ay tilmaamayaan inay rajeynayaan inay si fiican u aqbali doonaan dhageystayaasha barnaamijkani dhageysan doona ama akhristayaasha maqaalka kani xiisaha leh, iyo sidoo kalena u horseedi doonto wacyiga ku saabsan dabeecad kale oo fool xun oo bani aadamnimo ah ee sahyuuniyadda iyo nidaamkeeda ay sameyn karayaan. qormada ayaa lagu xusay Dr. Fatima Reza gacantii ay ka geysatay diyaarinta dhiganahani loo yaqaano qursiga Jerusalem, Dr. Galam Al-Habib xafiiska arrimaha caalamiga ah ee macallimiinta jaamacadda muslimiinta Abriil 2021. imtixaanaha koowaad ee maanta ee barnaamijkanaga waxayna ku hordhici doonaa burburinta qursiga iyo gabadfalada goobaha muslimiinta ee barakaysan iyo burinta xuquuqda diimeed ee muslimiinta. sahyuuniyadda waxa ay qorshaysay inay Falastiin ka abuuraan dawlad Yahuudi ah 100%. masiixiyiinta iyo Islaamka waa in meesha laga saaro sida uu tilmaamayo qorshahooda.
qorshaha sahnuuniyadda waxa uu ku baaqayaa in dhammaan dadka aan yahuudda ahayn laga saaro Falastiin lana burburiyo meelaha quduuska ah ee muslimiinta iyo masiixiyiinta. sanadkii 1984 sahnuuniyadda waxa ay ku guuleysatay inay xaqiijiyaan ujeedadoodii ugu horeysay iyaga oo 80% dhulka Falastiin ka abuuray dawlad yahuud ah. waxa ay xoog iyo xasuuq kaga eriyeen dhulkii ay ka qabsadeen in ka badan 800,000 oo Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo 700,000 ay ka mid ahaayeen bulshooyin muslimiin ah ee deganaa Falastiin, halka 100,000 oo kalena ay ahaayeen kirishtaanki deganaa Falastiin. waxa ay gabi ahaanba burburiyeen in ka badan 490 tuulo oo ay ku noolaayeen dad ka yimid dhulalka Carabta, iyaga oo cagaf-cagafka ku dhuftay dhammaan guryihii iyo dhismayaashii kale ee tuulooyinka si ay u tirtiraan dhaqanka iyo farca Carabta ee dhulka Falastiin. sida laga soo xigtay diiwaanka golaha sare ee Islaamka Jerusalem, ciidamada sahnuuniyadda ayaa gabi ahaanba burburiyay oo tirtiray 480 masaajido oo muslimiintu ay leeyihiin. 14 ka mid ah masaajido ay lahaayeen muslimiinta waxa ay u bedeleen goobo lagu arrimaha calmaaniyadda, warshado ama naadiyo ama arrimo kale oo diini ah oo quseeya yahuudda. waxa ay gabi ahaanba burburiyeen 410 xabaalood ay muslimiinta ku aasnaayeen, iyaga oo cagaf ku dumiyay oo jabiyay dhammaan dhagaxaantii iyo haraagoodii. hotelka Hilton ee Tel Aviv ayaa laga dhisay qabuuraha Abid al-Nabi ee muslimiinta ee dalka Falastiin. sahnuuniyadda waxa ay qabsatay dhammaan hantidii diineed ee muslimiinta, hantidii waqfiga ahayd ee muslimiinta ee ku taalay 12 magaalo ee ay qabsadeen iyo waliba tuulooyin badan, iyaga oo xoog ku qabsaday dhismayaal, dhulal, dukaamo iyo hanti kale oo ay lahaayeen hay'adaha samafalka ee diinta Islaamka. بجهادي ولهي بحماسي. barnaamijkani waa barnaamij tixana ay noo sii socon doona ilaa aynu gunta dhamaadka barnaamijka aynu kaga gaari doono. aniga oo Abduqaadir Maxamed ayaa tarjumay oo idinlana socodsiinaya. waxaad si toos ah maalin waliba kala socon doontaa Somestream haddii ay tahay markay kugu horeysay ee aad ina soo booqato. rukumo janalka oo la wadaag saaxiibadaada si ay ula socdaan barnaamijkani taariikhda ah iyo barnaamijyo kale ee taariikh ah ee aan kaga warrami doono dunida Islaamka ee imika la aafeeyay. سأنادي